بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولاalaha aqyaartii asxaabtaan jeclahay ee channelkaygan waani wacyigelin ku xiran walaalayaal soo dhawaada insha Allah raxmaan dhammaan walaalaha igu cusubna waan soo dhaweynaya waxaan leeyahay soo dhawaada gacan furan ku soo dhawaada waana ku mahadsantihiin subscribe-kiina adiga hadana daawanayn hadii ay ku taa walaal markii ugu horeysay waa channelkan daawatid waxaan ka codsanaa waxay tahay hadii aad ku qanacdid waxyaabaha aan channelka soo gelino inaad channelka subscribe noo dhahdid gambaleelkana afoortid insha Allah si mar walba wax cusub aan soo dhigno ay ku soo gaaraan dhammaantiin isku duuban waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin insha Allah maanta khiyaar asxaabey mowduuciga ama maaragta qodobka aan rabo maanta insha Allah inaan ka hadlo wuxuu ku saabsan yahay waxay tahay sidaan wada ognahay waxay maalmo qura ka hareen bishii barakeysneed ee Ramadaan qofkii uu Ilaahay nabad iyo nolol ku gaarsiiyay insha Allah uu gaari doona marka hadii la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan maxaa kuu qorshaysan inaad qabatid maxaad se jeclaan lahayd inaad uga faa'iideysatid insha Allah mowduuc saasoo kale u dhigma ayaan rabaa insha Allah maanta inaan fiidiyogan kaga hadlo sidaan wada ognahay ciidii la socota ama ciidii dhageysata muxaadaraadka culimadu waxay ka hadleen qodobo aad iyo aad u fara badan ayaa culimo aad iyo aad u tiro badan ay kaga hadleen waxyaabo ma aragta aan Ramadaanka ugu diyaar garoobi karno intuu Ramadaan ka hor imaaninna aan ku qaabili karno insha Allah aniga maraba taas inaan ka hadlo maxaa yeelay taas dadkii ma aragta ahlu cilmiga u ahaa ayaa nooga filnaaday laakiin aniga waxaan rabaa insha Allah inaan ma aragta si shakhsi ah insha Allah aan ma aragta u sameysano jadwal la qaasno ah kaasoo ka duwan jadwaladeena hore ee 12 bilood aan lahayn waa hadii aad ka mid tahay dadka noloshooda ay ma aragta u nidaamsan tahay in u leedahay qorshaha iyo jadwalada yoomiga ah ee sameystaan marka maadaama aan ognahay bisha Ramadaan inay tahay bil cibaado waxaan ma aragta insha Allah idin rabaa in idin la wadaago waxyaabo insha Allah hadii aad sameysaan Ramadaan markuu dhamaado insha Allah aad arki doontaan natiijo wanaagsan waxyaabahaasna dabcan waa waxyaabo aan ma aragta anigu Ramadaanadii hore tijaabiyay insha Allah ma ayna shaqeeyay oo ma sha Allah aan aad uga faa'iiday waxaan jeclahay idinkana ma aragta insha Allah maadaama Ramadaanadii hore aan isla joogin oo Ramadaankan ay tahay Ramadaankii ugu horeeyay waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago si walaalo badan oo igu xiran jecelna in Ramadaanka faa'iideystaan hadana si ma aragta qorshu ka yahay oo horena aan jadwal u lahayn insha Allah ma aragta ugu saxmato waxyaabaha ay jecelina Ramadaan uga faa'iideystaan biidnillaahi baari horta Ramadaan markuu yimaado waxaan ognahay mid waa iska ognahay waxa weeyaan aadan xariifin ugu nahay waxa waa inaan ma aragta cunada bedelno oo waxyaabihii cunada ma aragta qofkii jadwal yoomiyo cuno karin lahaa waxa way jadwalkaasi wax badan uu ka bedelaya taas horta waa mid waa la ogyahay laakiin muhiimadu taas ma ahan laakiin aniga cagsiga wallahi been idin sheegay xaqiiqada idin kala hadlaya Ramadaanka markii la gaaro waliba anaga Yurban joognaa waxa waa saacada fara badan la soo naadaa bishan maadaama ay tahay bil cibaado markii lagu dhahayne waxaa la rabaa jirkaaga ma aragta adoon de jirkiina maxay toole aanan daciifinaynin laakiin haddana ina waxyaabaha israafka ah aan iska ilaalino markaan leeyahay waxyaabaha israafka ah waxaan ka wadaa waxaan ognahay cunada waan ku xadgudubnaa Ramadaan markii la gaaro qado quraac casho oo aan maalinta cuna jirna ayaan habeenka cunaa taasna waxa way caafimaad darro aad iyo aad u weyn waa marka bishan Ramadaan waxyaabaha xaqiijin kartid insha Allah hadii aad jadwaleysatid waxa kamid ah in aad miisaankaaga dhintid miisaan waa hadii aad tahay dadka xiiseynayna miisaanka iska dhimaan Ramadaan waa fursad weyn hadii aadan ma aragta cunadaada nidaamisid oo aadan maxay toole cunno fara badan aad cunin waxa waa insha Allah biidnillaahi baari miisaanku ka dhacaya laakiin hadii aad tahay walaalaha maxay toole markoodii horeba aan miisaan badan lahayn ayaga insha Allah taladan kuma socoto laakiin taladan waxay ku socotaa waxay tahay walaalaha raba inay miisaan iska dhimaan kuna dawaqay aniga idin la hadlayo 10 kiilo ayaan xasuustaa Ramadaankii hore inay dhacdo 10 kiilo qof miyaa suureysan kara inay bil gudaheed 10 kiilo ka dhacdo maxaa keenay waxay tahay maxay toole cunooyinkaaga aad ka taxadartid kontaroolshid wax yarna aad cuntid meelaha qaar waliba saacado yar la soonaada marka meelaha saacadaha yar la socnaado waxa laga yaabaa qofka inuu ma aragta habeenkii oo dhan inta badan ilaa intuu ka seexdo inuu cuno isku qaato waxaasna caafimaad ahaan uma fiicno hadafka iyo ujeedada bishan laga lahaana ma ahan bishaneeti waa bil caafimaad waa bil qofka maxay toole oo caafimaad ahaan xataa ma aragta oo wax ka bedeli karo aysan ahayn kaliya ma aragta inay tahay bil cibaado caafimaad ahaan xataa bishaneeti waxa way
aad ayuu maaragta qofka caafimaadkiisa wax badan uga bedeli karaa. taas waa midaas aan ku talinayo, taas waa tala guud. laakiin aniga maxay ahayd toole midda kale oo taa igala muhiimsan oo aan raba in idinla wadaago waxay tahay sameyso jadwal cibaadi ah, kaas oo aad rabbi subxaanahu watacaala ku caabudaysid bisha inta aysan soo gelin ka hor. jadwalkaas qoro, meel dhigo. wallaahi alcadiim taas hadaa sameysid waxaa waaye faa-iido weyna gaari doontaa. ani kama hadlayo qur-aan aqrinta caadiga, kama hadlayo taraawiixda, kama hadlayo salaatuleylka la tukada, kama hadlayo cibaadooyinkan caadiga ee maaragta ramadaanka inta badan dadku ay qabtaan. aniga taa ka hadlimayo, laakiin waxaan ka hadlayaa haddii aan tusaale yar ku siiyo, waxaan ka hadlayaa waxaad sameyn kartaa oo kalentood. ramadaan ma dhashay? haa. aniga qur-aanka alla raxmaanka ma i xifdisiiyo, macnihi waxaan ka wadaa xifdinka ma waday, ma aqaana ilaahay ma i baray. haa, laakiin ma xifdisani soomahan qur-aankii. ramadaan waxaan kaga faa-iideysanaya insha allah labada suuradood ee ma aragtaa maxay hitoole nabiga sal alla alay wasalam uu ku sheegay inay yihiin labada suuradood ee qur-aanka hogaamin doona maalinta qiyaamo, waa suuratulbaqara iyo suuratu aali cimraan. labadaas suuradood waxaan kaga faa-iideysanayaa bishaan barakeysan ee ramadaan inaan dusha ka xifdiyo. haddii aad tusaale saasoo kale ama jadwal saasoo kale aa qaadatid, waxaa hubanti ramadaan maalinta uu dhammaaday ee la iido inaad natiijo aad iyo aad u fiican aad gaaraysid. anigan kula hadlayaa tijaabiye waana gaaray, adigana waa gaari kartaa, waana sameyn kartaa, saasoo kalea sameyn kartaa. waxa haddii aad hataa taa aad maaragtaa qur-aanka aad xifdisanto ilaah kugu nimceeyey, waxaa sameyn kartaa kutubada faraha badan ee diiniga ah ee maaragta aan intaan soo qaadano buwaagta ka daalacano ayaad waxaad sameyn kartaa. intaad kitaab dhan soo qaadid baad dusha ka qeybi kartaa. waa faa-iiday ku tahay adiga maanta bishaan barakeysan taas kaga faa-iideysato, weligaana kaa dhumi mayo. waa bil maaragta shayaadiinto dhan ay xirxiran yihiin, wax kaa caajisi wahsigelinaya aadan haysanin, fursado fara badan aan haysano. marka bishaan haddii aad taas kaga faa-iideysatooda kale kitaabkaasoo kalentood uma baahnid maalin kalentood inaad kitaabka inaad soo qaadid iyo inaad raaraadisid iyo inaad dib u baarbaartid, uma baahnid. maskaxdaaba ku hesaaba biidni illaahi ilbaari. haddii aad ilaahay u tala saartidna insha allah ma kaa dhumayo. haddii aad maaragta dabcan aragtid inuu kaas yar dhumayan, waxaa sameyn kartaa kalentood waad maaragtaa dulmari kartaa oo maaragtaa maalin walba markaa qur-aanka akhrisid kadib dhowr beej waad ka akhrin kartaa. marka fursaday kuu tahay, faa-iiday kuu tahay, isku day marka bishaana naftaada wax ka bedeshid dhanka cibaadada. ha ku gaabsan oo keliya qur-aan akhrin. bisha qur-aanka waan dhameynaya, dhowr jeer baan dhameynaya. waxaasoo dhan waxaa waaye wax dadkoo dhan ay wada sameeyaan waaye. insha allah adigu waxaa isku daydaa waxyaaba ka duwan sida tusaalayaasha aan dugsiyo kalentood. idinkana kumanaan tusaalayaal oo kalentood ayaa keensan kartaan oo noloshiina aad wax badan ugu soo kordhin kartaan 30kaas beri ee bisha ramadaan biidni illaahi ilbaari. taas laakiin waa aniga tusaalaha aa idin tusay. xataa haddii aadan maaragta labadaas suuradood, suuratulbaqara iyo suuradaas kalentood ay kugu adag yihiin, inta qur-aanka ilaahay ku baray ayaad ma aragtaa xifdin ugu dhaqaaqi kartaa inaad dusha ka qabatid oo ka qeybtid. waxaa waay waana sahlan tahay haddii aad ilaahay kuu sahlo adigana aad dadaalka la imaatid insha allah. ogowna waxaad ogaataa dadkao dhan waa bani aadam. ilaahay bani aadamkao dhanna isku caqli ayuu siiyey, intuu caqli siiyey. marka caqliga ayaa lagu kala duwan yahay sida loo kala adeegsaday, waxaana lagu kala duwan yahay dadkao dhan maadaama ilahay isku waqti uu siiyey, waqtiga say uga kala faa-iideysteen. marka adigana insha allah waxaan ku leeyahay waqtiga ay kaga faa-iideyso wax markuu ramadaan dhammaado insha allah natiijo gacanta lagu taaban karo aa insha allah ku gaartid biidni illaahi ilbaari. taas waa tusaalaha idin siinayo ee xagga cibaadada insha allah biidni illaahi ilbaari. xagga caafimaadkan waa saa idiin soo sheegaysa uga soo hadle aan iska dayna israafka cunada ku sameynayna cunadan faraha badan intaa cuno. qofka xataa wallahi waxyaabaas idiin sheegaya ma qabsan karo haddii cuno badan uu cuno. wixii aad maalmihii kale caadiga cuni jirtay wax badan ka bedel aduu welibana soomanaa. maxaa yeelay cibaadada firfircooni fara badan ayaad u helaysaa. waxyaabahan ku sheegayo dhan waxaa way kuu sahlanaanayaan. laakiin haddii aad markii aad afurtay cuno badan isla dhigtid, hudaa u baahanaysaa qadyaan iyo waxaan ku leeyahay tuxun iyo dirqiba waxaad ku tukanaysaa maxay salaadii waajibka ay taraawiixda waa hadaa tukata hadii kale intood waxa way tiibaaba kugu adkaanayso. marka insha allah saysa taas u dhicino waxaan ku leeyahay cunada aan ka taxadarno, aan iska dayno cunadan faraha badan le aan karinayno dumarkiina ku dhibtoodeen maxay heetoole anagana faa-iido aanan noo lahayn. marka insha allah taasna waa taas dhanka caafimaadka. labadaas qodob ayaan jeclaystay insha allah inaan idinla wadaago inaad ramadaanka jadwal ahaan intaa u sameysataan aad kaga faa-iideysataan biidni illaahi ilbaari. labada qodobna waa laba qodob haddii aad ma aragtaan
siday tahay uga faa'iidaystid ee natiijo la taaban karo ku gaari kartid insha allah. waa haddii aad tahay qof niyadeedii leh dadaalkiina la yimaado biidni illaahi ilbaari. wax walbana waxaan ognahay ugu hore intaana sameynin ka hor inay ma aragtaa fiican tahay ama aad iyo aad loo ammaanay in ilaahay loo tala saarto. wax allaaliya wixii ilaahay ma aragtaa loo wakiisho oo dho ilaahay arrintaanita adaan kuu kaashtay waxaa ilaa raxmaanka uu kuu fududeynaya. laakiin ilaahay garabkeena kama baxo, ilaahay waxaa marna kama maarano. taasna waa ma aragtaa xasuusin guud. waan ogahay qof walba muslim ilaahay inuu ma aragtaa mar walba wax inuu markuu sameynayo uu jecel yahay inuu ilaahay ma aragtaa u tala saarto. laakiin laga yaabay mararka qaar inaan iska ilaawno. marka mar walba waxaa idin leeyahay taasna ku baraarugsanaada. tallaabo walba oo qaadaysid haddii aad tiraad ilaahu arrintan adaan kuu wakiishay waxaa hubantiya arrintaasayta in insha allah si sahlan u dhici doonto natiijo iyo ma aragtaa waxyaaba aad taaban kartid insha allah aad ku gaari doontaan. labadaas qodob waa labada qodob aan jeclaaday akhyaartii asxaabtay waxaan idin la wadaago insha allah. waxaa inoo balana biidnillaahi ilbaari anagoo labadeenaas qodob jadwaleysano iyo waxyaabihii kale oo aad haysataan oo kheyraada biidnillaahi ilbaari. kadibna insha allah ilaah idinkiis aan ramadaan si wanaagsan uga faa'iidaysano. ilaahay hanoo fududeeyo, ilaahay nabad islaamaha nagu gaarsiiyo, ilaahayna insha allah hanaga dhigo kuwa isbedel dhab ah hela ramadaanka insha allah kadib biidnillaahi ilbaari. aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashadiina sida quruxda badan laa ila socotaan biidnillaahi ilbaari. inta aan fiideo kulmeenno waxaan kaga tegayaa waxay tahay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.